هاي كرانة ويستلم رمضان أنا دافت شقد المسيح عنه أنتم ما يقوى تيار خلا عنتدي إياه كنا عنتد تيار كم يهلو حق عنتدي ردي ما يرن وشيلي ردي لا قلنا سير الله هذا كله ركتي نايا لا ردي نبي يصير يا شو كع أي مكسر كنا بس saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada ee ay Soomaalidu ku wada xiriirto loogu baahiyay muuqaal si bini'aadanimo ka baxsan loogula dhaqmayo gabar shaqaale ah oo lagu tilmaamay inay tahay Itoobiyaan laba dumar ah oo ku nool deegaanka Soomaaliyeed oo aan ilaa iyo hadda si dhab ah loo aqoonsanayaa wax aan la daawan karin ku sameeyay gabar jaariyad ah oo ay magaceeda ku sheegeen Janno muuqaalka oo 12 daqiiqo ah ayaa haweenkaas Soomaalida ah waxa ay gabadha ku qasbeen inay cunto rooti qalalan oo ay dhulka ugu tuureen kadib waxa ay ku amreen in rootiga ay ku cunto dambas arintaas oo waxyeelo caafimaad u horseedi karta haweenka labada ah ayaa garaac iyo aflagaado xun isugu daray gabadhaas u muuqatay mid ku nool xaalad gumeysi oo kale mid ka mid ah gabdhahaas ayaa la maqlayaa iyadoo gabadha jaariyada ah ku qasbaysa inay xirato waji xirka iyadoo sheegtay inay ka baqayso in la xiro waxay cuntay rootigii caruurta halkan ayay noo jiiftaa ayay ku eedeeyeen Janno نايا حديقسة كل فلف ها أنت واحد بعشي يا ريده حوق إيه قرارات شبعن عنا يا قرارات شبع بس هاي قبصانين عري سوقه gabadha oo ku hadlaysa Soomaali jajaban ayaa mar gacmaha cirka u taagtay si ay alle uga barido inuu ka saaro silaca ay ku jirto markii ay cuntay rootiga dambaska leh ayaa waxa ay labada dumar si arxandaro ah ugu qasbeen inay fadhiga ka kacdo waxaana ay ku cabatay inay lugta xanuunayso oo ay bir uga jirto ilaa iyo hadda ma jiro mas'uul Soomaali ah oo ka hadlay dhacdadan ama sheegay inuu baarayo فرصة بود كع بود أي كع لوكتي واحد مو ميسا ما كع لوتن كجيس تاجد دونيسا أنا عشقي كويس تاج أنا فوري كويس تاج والله مو بودي لا كويس تاج كويس تاج